dhammaan horta waan salaama salaan kadib kusimaha gudoomiyaha jaamacadda madaxa gobolada iyo dhammaan maamulayaasha kale ee xafiisyada jaamacadda aadan u salaama salaan kadib waxaan salaamaa ardayda maanta bandhigan ama xafladan loo dhigay waxaan u baranay marka hore cod inaan isku soo duubno laakiin WhatsApp-ka codkina isku soo duubno laakiin hadda maanta way soo hortaaganahay waxaan igaga mahadnaqa kuwaad oo ah soo ajiibitaanka soo ajiibteen imaanshaha xafladda bandhiga buugga daafacashada weli ma dhicin in arday intaan la fac ay imaadaan xafladda looga dhigo barxadda jaamacadda waxaana ka mid tihiin ardaydii ugu horeysay oo intaan la fac oo bandhig imaato waxaa sanadkan jaamacadda ka qalin jibinayso jaamacadda Balaasmo dhan xarumaheeda gobolada iyo main campus-ka 900 oo arday 641 arday wixii ka qalin jibinay main campus-ka jaamacadda iyo BIU campus 259 wixii ka qalin jibinay regionalska jaamacadda markaan ka soo qaadana qayb xafiiska research-ka waxa waaye markii research ama qashin maxameer la arkaysiin laakiin dad qarsan jiro oo hogaaminaya research committee oo kamid yahay Professor Usman Xeedar iyo waxa kale oo kamid ah Dr. Saalax waxa ku aragtayna oo malena barxadda jaamacadda laakiin waa madaxa health science-ka jaamacadda ama diinka kuliyadda health science-ka waa ninkaas yar oo timaha madowga leh waaye Dr. Saalax marka xafiiska shaqada uu qabto waxa kamid ah horta wuxuu u qeybiyaa groups ardayda saddex group kadibna waxay soo gudbisaan ciwaanadooda intaanan ciwaanada ay soo gudbisaan waxa jiro kulliyado jaamacadda oo ka tirsan oo hal arday ah sida medicine-ka iyo civil engineering-ka clinical medicine-kana waxa group isku qeybeen ayagana laba arday waay intaas kadib soo gudbinta ciwaanada waxa saddex ciwaan markay soo gudbiyaan waxa loo ansixiyaa hal ciwaan kamid ah ciwaanadooda kaas ay waxay ku suubiyaan research-kooda intaas kadib waxa kale oo loo suubiyaa proposal oo sanadkan aan ku soo gudbinay xafiiska maantana waxaan taaganahay stage-kii ugu dambeeyay oo difaacashada difaacanayaan 18 kuliyadood oo jaamacadda main campus-keeda kaliya ah 3 kuliyadood waxay ka daafacanayaan BIU campus gobolada waxay ka daafacanayaan kale 22 kuliyadood oo gobolada ah marka ka soo qaadana marka qayb gobolada beledweyne waa 76 arday ka qalin jibinayso 69 arday waxay ka qalin jibinay Beedhawo 36 arday waxay ka qalin jibinay Kismaayo 31 arday waxay ka qalin jibinay Dhuusamareeb 34 arday waxay ka qalin jibinay Marko Jowhar Marko waxa ka qalin jibinayso 13 arday ayaa ka qalin jibinayso marka intaas ayaan ku soo gabagabeynaa anaga laakiin waxaan rabaa hal dardaaran oo idinkana nii fiican anagana noo fiican waxa la dardaarmaa teamka panelka si naxariis leh inay isha nigu fiiriyaan adoo allidmi insha Allah aadaan u mahadsantiin salaamu calaykum